ciidanka Turkiga oo lagu wareejiyay nidaamyada ugu casrisan hagitaanka maraakiibta gujiska. Shirkadda Turkiga Havelsan ayaa shaaca ka qaaday in nidaamka amarada iyo xakamaynta oo shirkaddu si maxalli ah u hormarisay ay ku wareejisay xarunta Goljuk ee samaynta maraakiibta si loogu rakibo markabka gujiska Aydin oo mar dhow la soo saari doono si ciidanka Turkiga loogu wareejiyo. madaxa hay'adda samaynta hubka ee Turkiga Ismaaciil Demir ayaa tilmaamay in nidaamka cusub uu yahay maskaxda maraakiibta gujiska. Turkigu waxa uu ujeedkiisu yahay inuu samaysto 6 maraakiibta gujiska nooca cusub oo leh nidaamka difaaca automaatiga ee AIB. go'aankan ayaa qaatay guddiga fulinta warshadaynta hubka waxaana la filayaa qarashka guud ee mashruucan inuu gaaro 2 bilyan 200 milyan euro. markabkii ugu horreeyay oo loo yaqaan TGGS 330 ayaa la dejiyay 22 bishii Diseembar sanadii 2019 iyadoo uu goobjoog ka ahaa madaxweyne Erdogan. marxaladda xigta ayaa ah in markabku uu ka howlgalo taliska hoggaanka ciidamada badda sanadka 2022 halkaas oo ay hadda ka socoto howlaha qalabaynta kadib markii uu ka soo gudbay tijaabooyinkii warshadda.